diyaarad rakaab ah oo ka timid dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa lagu soo waramayaa in saaka loo diiday inay ka degto garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Wararka ayaa sheegay in diyaaradda oo ay lahayd shirkadda Fly Dubai ay dib ugu laabatay dalka Imaaraadka Carabta iyadoo aan dejin rakaabka ay siday. Sida ay wararku sheegayaan, hay'adda duulista rayidka hawada ee dowladda Somaliland ayaa duuliyaasha ku wargelisay in diyaaradeedu aysan ka degi karin magaalada Hargeysa iyadoo la fulinayo amarkii dowladda Somaliland ay ka hortagisay cudurka corona. Arrintan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyadoo maanta uu dhaqan galay go'aankii ay dowladda Somaliland ku hakisay dhammaan duuliyaasha caalamiga ah ee Somaliland. Sidoo kale wararka ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan wax diyaaradaha ka soo degin garoonka Aadan Cadde kadib go'aankii dowladda Somaliland. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Somaliland ayaa isniintii shaacisay in xanibaadda ay socon doonto muddo 45 cisho ah sababo la xiriira cudurka coronavirus. Tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ay dowladda uga hortagayso cudurka iyadoo dhammaan albaabada iskugu laabtay goobaha waxbarashada ee waddanka.